halkan aan ku suganahay waa xaafad ay deganaayeen dad aroos ah oo aroos cusub ah waxa xalay saqbarkii ama saqdi dhexe ee 9 saac ku soo dhacay hoobiyaal ka soo galay halkan xaafadana oo xaafada General Daawud isla markaana ka tirsan degmada Xamar Jajab ayaa lamaanuhu ay deganaayeen xalay 9 saac ayaa waxa ku soo dhacay hoobiyaal waxaana dhaawac culus uu soo gaaray wiilkii arooska iyo gabadhii oo halkan wada jiifay isla xalay waxa soo gaaray dadka qoyska oo gargaar u fidiyay isla markaana waxa loo raacaray isbitaalka Yadameeri walow markii dambe laga soo wareejiyay oo loo wareejiyay isbitaalka Daarushifa sida uu noo sheegay Maxamed Cumar oo ka tirsan qoyska Maxamed Cumar ayaa inoo sheegay inay adkaatay in laga saaro dhaawaca halkan isla markaana gargaar loo fidiyo sabab la xiriira wadooyinka oo xiran biyo badan ay yaalaan isla markaana ay dhagxaan waaweyn ku gudban yihiin agagaarka xaafadaha Maxamed oo hadlayana waxa uu yiri meeshan waxa ka dhacday xalay abaari 9 saac markay ahayd ayaa waxa soo dhacday hoobiye annagana wax kama ogeyn jugti markaan ka war helnay ayaa waxna soo aadnay halkan guriga beerteedii waaye waxa degneed gabar iyo odageeda wiilkina dhaawac oo noqday gabadhan dhaawac waaye laakiin gabadhan ma dhiman way nooshahay anaga la cararna istaalka geenay laakiin dibka meesha taalana waxa waaye meesha haduu dhaawac imaadane in maaragtay degdeg qofka loo saaro qiimo badan qofkiina meel laga saaro meel la marsiya la waaye maadaama halkan dhagax ay ku gooyeen wadadan dhiiqo iyo biyo iyo wasaq ay tahay dhulka dhan cariiro nagu noqday meel baawur mari karana ma ahayn xaafadana waa meel yar oo gooban noqotay marba dhinac yar diisa loo soo durqaayay marka ma sha Allah gabadhii wiilkina istaalkan hadda way ku fiican yihiin ma sha Allah dhimashada la sheegayna wax kama jiro waxa maqlay hadda marka istaalka soo laabtay way dhimatay iyo waxaas ayadoo la sheegayo laakiin wax kama jiro waxa xaqiiqda inay noosha gabadha waxa qurux badan qofku wuxuu yaani dhimasho on dhiman hadii lagu tilmaamo waa laga qurux badan yahay Soomaa gabadhii wiilka way isqabeen waa laba mar dhow soo guursatay oo hatta maaragtay qolka soo degeen ee ahaayeen ma sha Allah qadar Allah wax walba ku dhacay hooyaha koowaad ayaa haleelay labadooda istaalka waxaan geenay markii ku dhacay hoobiyaha guriga soo dhacay kii labaad markuuna dhaafay ayaan soo baxnay anaga Daarushifa geenay meeshaasan gabadhana waxa la geeyay Dameeri marka dambana waa soo qaadnay Daarushifa keenay wax u gaaray marka wiilka gacanta wax ku gaaray iyo lugta gabadhana halkaan maaragtay meeshan iyo halkaas meeshan gadaal ka gashay marka dibka saas u jira meeshan waa yaabe la yiraahdo xaafadda waa yaabe ayadana u gudbay dad badan ku dhaawacmay ku dhintal sheegay aniga ma tagin laakiin aniga dhaawacana la tacaalay marka ma sha Allah sidaas wax u jira Maryan Ladan Xuseen Dalsan TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta